بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله مقال كينا waxaynu kaga hadli doonaa waa maxay biology sidoo kale waxaynu isleegi doonaa definition-ka ama qeexitaanka iyo waxa lagu barto biology insha Allah ta'ala biology haddii aynu af Soomaali ku sheegnana waa cilmiga barashada nafliida ama cilmiga nolosha luqada Carabigana waxa la yiraahdaa cilmul ahyaa biology waa erey ka kooban laba erey oo Greek ah waxayna kala yihiin bio oo la macno ah nolol iyo logy oo isagana la macno ah barashada ama barashada cilmiga waxa nool sidaynu ogsoonahay waxa nool waxa sal u ah unuguna waa waxa ugu yar ee waxa nool uu ka samaysan yahay ha ahaado mid dhir ama xayawaanba aqoonyahanada biology-gu waxa ay waqti badan ku guda jireen barashada dhirta iyo xayawaanka sida ay u nool yihiin iyo sida ay jirkoodu u shaqeeyo iyo walibana sida midba midka kale noloshiisa u samaysto qarniyadii hore aqoonta cilmiga biology-ga heer wanaagsan lagama gaadhin sababtuna waxay ahayd iyadoon teknolojiyadu heer fiican oo tadawur ah gaadhin sida ay nala socono qarniyadii u dambeeyay cilmiga biology-ga aqoontiisu way sii ballaaratay aad ayayna u sii korodhay taasina waxa uu suura geliyay heerka wanaagsan ee uu gaadhay teknolojigu waayahan dambe haddaba haddaynu definition-ka ama qeexitaanka biology-ga isla eegno biology-gu waa barashada organismiska waxyaabaha nool iyo waxa aan nooleyn sidaynu u fahanay inuu biology-gu yahay barashada waxa nool iyo waxa aan nooleyn aan dhowr tusaalayaal isla soo qaadano haddaynu ku horeyno waxa nool shayga waxaynu odhan karnaa waxa uu nool yahay marka uu characteristics-kii ama astaamihii laga helo noolaha waxa kamid ah waxyaabaha nool bakteeriyada iyo insectska cayayaanka iyo animaliska waxyaabaha aan nooleyn haddaynu tusaalayaal dhowr ah ka soo qaadano waxa kamid ah dharka iyo qalinka iyo sariirta iyo waraaqadaha waxaas oo dhanina ma noola ugu dambeyntii waxaan kusoo koobinaa barnaamijkeenan maanta su'aal ah dhirtu ma noola mise waa ma noole daawade jawaabtaada commentiga nagula wadaag wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu